صباح ونعسان دمانتين مدن رئيس الوزراء مدن وزيرك عصب وزارة arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wasiir dowlaha wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha madaxtooyada wasaaradda waxbarashada wali daba socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xildhibaanada senatarada marti sharafta dalka Soomaaliya hana daawanaya dhammaantiinba subax wanaagsan oo farxad ay tahay هذا البرنامج وين عندهم؟ وحنا راسلين هنا ندرسها وبس تحوله وساردا وحي عن قبلني يروح النوع الشيطان فيشي صحيح دون أي كيالين داتي كسر شغي يخبردي يوساردين وين شوكتا أنا يوسير كلا وقت ما نسوه الدونا وحي أنت عقبضنا لكن وحنا دور غلط ومهم بين درسها وراح إلى حاجة الشغلة ميدك كواد وحوية مرة الحريرة دبي هشيسينتو waxay ka mid tahay meelaha muhiimka u ah wasaaradda iyo dalkaaba hawl weyn ayaa loo qorsheysanay waxa jira shir aan soo qabanay bishii June waan ku qeexaynay waxa dalkan la isku hayo iyo waxa ka xun iyo wadada loo mari karo iyo sida ay kala yihiin daraasadaasi waa gabagabo waxa jooga guddiga khuburaha oo gacanta ku haya way nagala joogto walaashay Safiyo سيد برنامج كاسي واحد ديارنا فريم ويجي أما الوريقة دي اللي مرناها دمي هشيسينتا ودوكومنتي جاسيا بيش مارش أيات عندها هي أسوق وجبو هاوش راسي وهو مهمة وميل في عمايسة ميلها مهم كا وهذا ميز كنا صارن الرماها حق دمي هشيسينتا ويبدأيه لكن ميلها أنه كردجني ميلها لبا هي هرب حلو مفتوحة كملة أنت الله حريك تقبله إلى السنة وأنت إذا يميل في عمر يسوع هشيس دوان لجاري لما يستري جبينه باهي هاي يو إن عاصمة درفلوج ورو دستور كلام يديو أود الله قايب صدو أنت حاسل جبينه ميل في عنا أنت عاصمة يسوع وحير هو باهن تاني يوم كابل سيوا أنت كحكتا وأنت الحريق تاجر كعيو وهو يلا خلافات كذا كقريدها مدرسة شيء تميسي أنتاس هول في عم أيضا لا يغطي وكبر ولي من ياشا المدد والجولات بنتلاني يجمدوا وصف على هو شغال من حافي ومن الجاز أي مسؤولية الجلية لبدا معين المجال المقدسه لبدا وسارده لبدا الشعب كوميتي وهل كان دقن انتوا أي هول وين أي هوشة جماعتين دوال هوشة واحد سمعيني حفيظ أي كفرنا قال كعيو ضد حريرية أرنتاس waxaa socda isku dhafkii booliiska oo meel fiican maraya waxaa la wadaa isku dhafkii ciidamada kale oo amniga oo militariga dadku maanta diyaar bay u yihiin maanta maalin ay ka dhowdahay arinta gaalka ayana ma jirto waxay u baahan tahay iyadoona in si fiican loo riixo oo la dhamaystiro oo meeshii aan soo gaarsiinay iyadana laga sii wado way bisisha أنت كانوا يمكن يحاولوا أنت الله حريقته جوبك مركا ويدورا أي حمد أنت هو شيء تميسي قرشيه أنك قليل هينا أو هذا دياري هاي أميز كساري هاي أو باهي سجرا إن دقاتيو اللي هالجريو كوميونيتي ده مش هادجن هشيس ولا هلا ما يبقى لنا مجال مقدسه نحل معنا ضوضاء يقنع ستلا وحجرتك يسفهم إلى هذا يلحق ما بعشرة يجي أيام برنامج كريحية برنامج كاسي وديار استغلا وحول هي وحيرها ميس كسارة وربين هراء ولا قاشيو تاسوار أنت تبي شيء قلب كانوا واحد الله حريرة أنت فدرالك يودوا قبل دي واحد حريرة قلب كان يسوون وقلب أدمهم دم كان نواميش على سجاهيو دولة قبل دي هذا يدورون الحدوان بشيء نفهم بشانتي دي وحي وضعلين هشيس وحيارها أساسية هي ذلك هوريا الله اللي يجيه شيء كان سؤالي دي بقول في على أيام واحد تحت الله دولة الدحية دولة قبلية وسارد عننا وسارد
arrimaha federaalka inka badan inta ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha waa muhim marka in kalsoonida iyo xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladnimadeena halbowle u ah oo maanta meeshii ugu fiican maraya isagana in halkaa laga sii wado oo la hagaajiyo oo heshiiskaasna la dhowro horena looga socdaa waa muhim qodob kale oo muhim waxa weeye oo la xiriira muraha federaalka iyo dowlad goboleedyada waa arrimaha dhismaha golayaasha deegaanka oo ay muhim tahay in isagana dardar la geliyo oo haddaan golayaasha deegaanka la dhismin dowladnimadeenu ay weligeeda qabyo ahaanayso isaguna waa muhim ilaa 68 degmo oo gaalkacayo ay kasoo bilaabato 3 degmo kaliya ayaa ka dhisan oo koonfurta dhinaca Soomaaliya ah waxaa barnaamijkaas waxaa hadda hogaaminaya ugu horeysa waa dowlad goboleedka koonfur galbeed oo 2 degmo hadda dhistay dhowrna ay miiska u saaran yihiin Jubbaland iyaduna qabaqaabadii bay ku jirtaa Hirshabeelle iyo Galmudugna waxay dhamaystireen shuruucdii hadda golayaasha xukuumadda ay mariyeen baarlamaanka ayaa la geenayaa barnaamijkaasi wuxuu u baahan yahay in la dardar geliyo waxa la wixii la xiriiray oo dhaqaale ah oo resource-anta la xiriirtayna waa diyaar barnaamijyo badan oo ka horeeya intaan golayaasha deegaanka la dhisin oo dib u heshiisiintu ay ku jirto deegaamada ayaa ku jirta barnaamijkaasi waa barnaamij aan hoosta ka xariiqayo inuu isaguna yahay arrimaha muhiimka ah qodob kale waxa weeye arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta iyo meeshii aynu ka aadi lahayn 2020 waa geedi dheer waana geedi isbedbedeliyay hadda meel la tegayay sida rasmiga ah dalkaani hadda waxa u qorshaysan 2020 inuu doorasho galo hal cod iyo hal qof ah taasi waa siyaasadda rasmiga ah ee dalka oo taalo weeye caqabado badan baa ku gadaansan oo ama siyaasadeed ama amni oo u baahan iyagana in la sii dirandiriyo annaga waxaa nagaga aadan wasaarad ahaan waxa weeye sharciga la xiriiray doorashooyinka gacanta ayaa lagu hayaa waxaa jira guddi khubro ah oo wasaaradda jooga oo la shaqeeya khubro kale oo iyaguna hay-adaha lala shaqeeya iyo xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasaaradda dastuurka iyo hay-ado badan oo barnaamijka iyaguna ka shaqeeyay oo tala soo jeedin miiska soo dhigay tala soo jeedintoodii anigu si aan weligeedii aan ku lifaaqin wasiirkana waa kala sheekaystay baa iyaduna meesha taala waxa u baahan waxyaalo go'aamo siyaasadeed oo muhiim ah in laga gaarana way u baahan tahay arrintaasina waa arrin degdeg u baahan iyadana in wax loo qabto wasaaradda waxaa jooga dad shaqaale ah oo aada u wanaagsan dad khubro ah oo aada u wanaagsan dad aragtidoodu ay aada u sarreyso dad isku duban oo heella weeye waxaan hubaa in ay iyaguna ay gacan fiican ay wasiirka siinayaan waana ka codsanayaa inay siiyaan gacan buuxda ay siiyaan waxaa joogaan u mahadnaqayaa iyagana guddiyo lala shaqeeyo kamid yihiin guddiga xuduudaha iyo federaalka guddiga doorashooyinka guddiga qaxootiga qaranka oo dhammaantood la ah guddiyada la shaqeysa wasaaradda la shaqeysa xiriirka dowladda oo shaqada la leh dhammaantood waa la mahadnaqayaa iyo shaqaalaha iyo intii nala soo shaqeysa intaasi waa inta guud hal eray oo kale oo kama dambaysa ayaan rabaa inaan dhaho mudane ra-iisul wasaare mudane madaxweyne dalkani sidiisaba maanta waa lagu yahay dalkani waa lagu yahay waana daalan dadkiisuna siyaasad ahaan iyo amni ahaanba waa dayacan yihiin meel fogna waa laga yimi dhaqaale ahaan nasabool baa nahay kalsoonida shacabkuna way kala daadsan tahay oo kalsooni xumo siyaasadeed ayaa jirta dalkani wuxuu u baahan yahay marka isku wad iyo isu dulqaadasho oo ah furaha u ah in meesha la joogo hore looga sii socdo si taa loo gaaro qof kaliya ama koox kaliya ma noqon karto cidda iyadu arrintaa dhinaanirisa wuxuu u baahnaan doonaa marka talabadaan koox kaliya ma noqon doonto ama ma aha cidda soo aragtay ama og meesha loo guurayo oo meeshaan looga guurayo arrimaha si loo gaaro waxaa loo baahan yahay marka in dalkaani uu yeesho dood caafimaad oo dhab ah xasaasi ah mararka qaarkood xanuun badan laakiin aan qofaysnayn aan siyaasadaysnayn aan danaysnayn laakiin soomaaliyeysan ama berriyeysan waxaan ujeedaa mustaqbalka ku wajahan taa ayaa loo baahan yahay taas ayaana caafimaadka ku jiraa
labada doodood oo kala gedisan iyo afraarta kala gedisan dhexdooda ayaana xalka soomaalida ku jira intii burburku dhacay ama aynu ku fkacaynay ama sanadihii ugu dambeeyey waxa ugu xun oo inoo ku dhacay waa laba waxood waa wadaadka ka fikir duwan ku dhufta shabadda cadaabta oo yiraahda helnaa baata ama waa madax ninka ka fikir duwan ku dhufata shabadda mucaaradnimada ama qarandumiska intaa kadib intaas taasna Soomaaliyeed ma keenayso inta ayaan hadalkayga kusoo koobi lahaa intaa ka bacdi waxaan soo dhaweynayaa wasiirka cusub iyo wasaaradda waxaan idin dardaarmayaa khayr iyo nabadgelyo iyo wanaag dhammaantiin waa mahadsantihiin